السلام عليكم أصحابتا maanta waxaan isbarbardhig ku samayn doonaa awoodaha militari ee dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. Wargeyska Global Firepower ayaa dhawaan soo bandhigay liiska muujinaya awoodaha militari ee wadamada caalamka. Warbixintan waxaynu ku eegaynaa farqiga awoodaha militari ee dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. Inkastoo arrimo badan laga eegayo xogta wadamada Soomaaliya ayaa tirada ciidanka u dhiganta ama wax yar ka hooseeya Kenya. Waxaan isbarbardhigan ku samayn doonaa awoodaha Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia ee dhinaca militariga. Balse marka hore intaynu muuqaalka u guda galin waxaynu ka codsanaynaa like saarta videogan. haddii ay tahay markii ugu horeysay ee channelkeena soo booqato fadlan taaba calaamadda subscribe-ka oo rukuma channelkeena. dalka ugu horeeya inaan ku hadlayno waa Kenya. Kenya waxay kaalinta 8 ugu jirtaa liiska lagu qiimeeyay awoodaha militari ee wadamada oo ka kooban 108 dal. tirada guud ee shacabka Kenya waxay ka badan yihiin 48 milyan. tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasaa 19 milyan 600,998 ruux oo u dhigma 40% shacabka guud. 12 milyan 662,245 qofood ayaa awood buuxda u leh inay ciidan ka mid noqdaan. sanad kasta tirada dadka ay da'doodu soo gaadho heer ay ciidan ku biiri karaan waxaa lagu qiyaasay 848,807 qof. tirada ciidanka militari Kenya ee hadda shaqeeya waxaa lagu qiyaasay 24,150 askari. sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower, ma jiro ciidankeed u ah militariga Kenya. haddii aynu eegno awoodda ciidanka cirka ee Kenya, isku dar waxay leeyihiin 150 diyaaradood. 17 ka mid ah diyaaradahaas ayaa ah nooca dagaalka. 20 waxay kala gudbiyaan sanadaha militariga. 32 ka mid ah diyaaradahaas waa kuwa tababarka. 2 waxay fuliyaan howlgallada khaaska ah. 9 ka mid ah diyaaradahaasna waa kuwa qumaatiga u kacay loo yaqaan helicopterska. haddii aynu eegno awoodda ciidamada dhulka ee Kenya, ciidamada dhulka ee Kenya waxay leeyihiin 76 taangi, 479 oo gawaarida gaashaaman ah, 30 madaafiicda iskood isku haga, 25 madaafiicda la jiita ah. Kenya ma lahan qalabka gantaalada lagu rido. haddii aynu eegno awoodda ciidamada badda ee Kenya, hantida guud ee ciidanka badda ee dalka Kenya waxaa lagu sheegay 19. 7 doomood ayaa sameeyay kormeerka biyaha ee joogtada ah. Kenya ma lahan maraakiibta diyaaradaha qaada, kuwa wax burburiya, kuwa biyaha hoostooda muqurta, kuwa ilaaliya maraakiibta kale iyo weliba kuwa miinooyinka baara. dhaqaalaha ku baxa dhinaca militariga Kenya, miisaaniyada loo qoondeeyay howlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka Kenya waxaa lagu qiyaasay 121 milyan oo doolarka Mareykanka ah. deynta dibadda loogu leeyahayna waa 7,590 milyan. muhiimadda juqraafi ahaan uu leeyahay dalka Kenya, baaxadda dhulka waxaa lagu qiyaasay 580,367 kilomitir square. dhulka xeebta ku teedsan waxaa lagu qiyaasay 536 kilomitir. xuduudaha ay wadamada kale la wadaagto waa 3,407 kilomitir. Kenya ma lahan marin biyoodyo la isticmaali karo. haddii aynu eegno dalkeena hooyo ee Soomaaliya, Soomaaliya waxay kaalinta 106 ugu jirtaa liiska lagu qiimeeyay awoodaha militari ee wadamada oo ka kooban 108 dal. sida ku xusan warbixinta uu diyaariyay wargeyska Global Firepower, tirada shacabka Soomaaliya qiyaas ahaan waxaa lagu qiyaasay 11,208,209 qof. tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasay 2,702,167 ruux oo u dhigma 24% shacabka guud. 1,621,300 qofood ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka. sanad kasta tirada dadka ay da'doodu soo gaadho heer ay ciidan ku biiri karaan waxaa lagu qiyaasaa 121,598 qof. tirada ciidanka militariga Soomaaliya ee hadda shaqeeya waxaa lagu qiyaasaa 20,000 askari. sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower, ma jiro ciidankeed u ah militariga Soomaaliya. haddii aynu eegno awoodda ciidanka cirka Soomaaliya, Soomaaliya xilligan ma lahan awood dhinaca ciidanka cirka ah sida uu xogtiisa ku soo bandhigay wargeyska sanad kasta qiimeeya awoodaha militari ee wadamada caalamka. taasi waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya aysan lahayn ciidan kuwa cirka ah iyo diyaarado toona. haddii aynu eegno awoodda ciidamada dhulka ee Soomaaliya, Soomaaliya waxay leedahay 10 taangi, 100 gawaarida gaashaaman ah. Soomaaliya ma lahan madaafiic iskood isku haga. Soomaaliya waxay sidoo kale leedahay 30 madaafiic kuwa la jiida ah, iyo sidoo kale 10 qalabka lagu rakibo gantaalada. haddii aynu eegno awoodda ciidamada badda ee Soomaaliya, hantida guud ee ciidanka badda ee dalka Soomaaliya guud ahaan waxaa lagu sheegay 3. 11 doomood ayaa sameeyay kormeerka biyaha ee joogtada ah. Soomaaliya ma lahan maraakiibta diyaaradaha qaada, kuwa wax burburiya, kuwa biyaha hoostooda muqurta, kuwa ilaaliya maraakiibta iyo weliba kuwa miinooyinka baara. haddii aynu eegno wax soo saarka saliidda ee Soomaaliya, ma jirto saliid laga soo saaro Soomaaliya. saliidda la isticmaalo waxaa lagu qiyaasaa 6,200 oo baaril. ma jirto saliid keed u ah dalkeena hooyo. dhaqaalaha ku baxa dhinaca militariga Soomaaliya, miisaaniyada loo qoondeeyay howlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka Soomaaliya waa 62,200,000 oo doolarka Mareykanka ah. deynta dibadda ee dalkeena hooyo lagu leeyahay waxaa lagu qiyaasaa 5,300,000,000 oo doolarka Mareykanka ah. muhiimadda juqraafi ahaan uu dalka Soomaaliya leeyahay, baaxadda dhulka waxaa lagu qiyaasaa 677,607 kilomitir square. dhulka xeebta ku teedsan waxaa lagu qiyaasaa 3,025 kilomitir. xuduudda aynu wadamada kale wadaagno waxaa lagu qiyaasaa 2,385 kilomitir. Soomaaliya ma lahan marin biyoodyo la isticmaali karo. haddii aynu imaano dalka ugu dambeeya Ethiopia, Ethiopia waxay kaalinta 6aad ugu jirtaa liiska lagu qiimeeyay awoodaha militari ee wadamada oo ka kooban 108 dal. sida ku xusan warbixinta uu diyaariyay wargeyska Global Firepower,
tirada shacabka Itoobiya waxaa lagu qiyaasaa 108 milyan 386,390 qof. tirada ku beeri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasaa 41 milyan 143,474 qof oo u dhigma 38 boqolkiiba tirada shacabka. 25 milyan 508,944 qofood ayaa awood buuxda u leh inay ciidamada ku biiraan. sanad kasta tirada dadka ay da'doodu soo gaadho heer ay ciidan ku biiri karaan waxaa lagu qiyaasaa 1 milyan 989,698 qof. tirada ciidanka militariga ee Itoobiya hadda shaqeeya waxaa lagu qiyaasaa 162,000 oo askari. si lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower ma jirto ciidankeed u ah militariga Itoobiya. haddii aynu eegin awoodda ciidanka cirka ee Itoobiya, awoodda ciidanka cirka ee Itoobiya waa 86. Itoobiya waxay leedahay 24 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah, 9 ka mid ah waa kuwa saanadaha kala gudbiya, 20 waxaa loogu talagalay tababarka, 3 ka mid ah diyaaradahaasna waa kuwa qumaati u kaca, 8 ka mid ah diyaaradahaasna waa kuwa helicopters oo weerarada fuliya. Itoobiya ma lahan diyaarado loogu talagalay howlgallada khaaska ah. awoodda ciidamada dhulka Itoobiya, ciidanka dhulka Itoobiya wuxuu leeyahay 400 oo taangi, 184 waa gawaadhida gaashaama, 67 waa madaaficda iskood isku hagan, 650 waa madaaficda kuwa la jiida ah, iyo 183 oo qalabka lagu rakibay gantaalada ah. awoodda ciidamada badda ee Itoobiya, Itoobiya ma lahan awood ciidanka badda ah. sida uu xogtiisa ku soo bandhigay wargeyska sanad kasta qiimeeya awoodaha militari ee wadamada caalamka. taasi waxay ka dhigan tahay in Itoobiya aysan lahayn ciidan kuwa badda ah iyo maraakiib toona. dhaqaalaha ku baxa dhinaca militariga Itoobiya, miisaaniyada loo qoondeeyay howlaha gaashaandhigga ama difaaca dalka Itoobiya waa 350 milyan oo dollarka Mareykanka ah. deynta dibadda dalkan loogu leeyahay waa 26 bilyan iyo 50 milyan oo dollarka Mareykanka ah. muhiimadda juqraafi ahaan uu dalka Itoobiya leeyahay, baaxadda dhulka Itoobiya waxaa lagu qiyaasaa 1,104,300 kilomitir square. Itoobiya ma lahan dhul ku teedsan xeeb. xuduudda ay wadamada kala wadaagto waxaa lagu qiyaasaa 5,925 kilomitir. marin biyoodyada la isticmaali karo waa 104,300 kilomitir. intaas ayaynu maanta muuqaalkeena kusoo ekeynaa. fadlan haddii aad video ka heshay like saar, sidoo kale haddii aadan weli nagu soo birin fadlan taaba calaamada subscribe-ka oo nagu soo bir. mahadsanid.